مرلبات كسودو هذا لايف رالنا هذا سؤاشا مرلبات إنهم كعلنا رمنا وحواي دقالكي محمد سياد بري كسو سومالي لان وقاس كان سانوغناي SNM ومركز ماقع SNM وبناي قبيل كإساق ودقنو إلهي دلو كاسي وحلا غريناي ماهن ومركز دقالكاس دولدي سياد بري وكوصل إسناي إساق قرى للا دقالمين عيسى للا من دقالمين قضب برسل للا من دقالمين دولمانتا للا من دقالمين ورسنجل للا من دقالمين dadka la raadinayo la leynayo dawladdu ay markaa leenaysay isaaq basiyeen marka su'aasha waxay tahay waxaanu aragnay diyaarado ay ku sawran tahay calankii buluuga ah ee Soomaaliya oo cunug yar oo hargeysa ama isaaq ama ciyaal malxaamad digto lagu garaacayo bam dugsi oo ku jira waxaanu aragnay cusbitaaladii naaga dhalay iyo kuwa xanuunsan iyo kuwa dhindhala iyo kuwa lugala iyo kuwa mataqaana qalbiga la oo cusal ku jiro oo bam lagu garaacayo waxaanu aragnay taangi la dhacaya calankii Soomaaliya buluuga ah oo Caydiid ba hore uga warramay iyo Cabdullaahi Maajoor iyo General Galaal calan oo ku sawran tahay buluuga calankii Soomaaliya shanta xidig ee taangi xabadda saas ugu reeshanaya Hargeysa waxaanu aragnay askari niman indhala oo isaaqa tusaale ahaan haddaan isiiyo niman isaaqa xamar laga aruurshay xeebta liida la geeyey isaaq basta la raadinaya markaas saasaa loo soo aruurshay xabad saa loogu faro babababa waxaa ka hadla ninka la yiraahdo canjeecuur anuu ma aana diline waxaa dilay ninka la yiraahdo maslax maxamed siyaad barre de oo markaas de sirnaayb iyo mataqaana isaaqnima loo leenayo Soomaalidu run isma sheegto waan ognahay midaas marka su'aasha waxay tahay diyaaradii calanka buluuga ku soo royo hadda aanu Hargeysa maalaha shala ka imidan soo arkay banka isaaq laakiin waa ay arcadayaan ayuu nin faqshinayanahay laakiin runtan ka hadlaya waa degnaa Soomaaliland xaqana waa degaa oo General Caydiid iyo General Nur Galaal Allah u naxariistay iyo Cabdullaahi Maajoor ka hadleen oo nimankii xorriyadooda Ingiriis ka qaatay Somali Protectorate Somaliland xamar yimid Soomaalnimada raadinaya Soomaaliya hal raad shiro ayagu in shid gariyo hawshan soo bilaabay ninka qabiilooyinka degan anigu Somaliland kamid oo degan Somaliland lama dagaalameen isaaq bisa la dagaalamay fiidoogan shargareeya waan Hargeysa la geeyo su'aashan waxay ku socotaa dadka isaaq la yiraahdo I'm from Somaliland laakiin waxaan ahay Somaliland waa nation dad badan qabiilooyin badan degan at that time dawladda maxamed saad dadka ay taariikh digreynaysi isaaq bay ahaayeen dad baa isaaqnimo loo leeyahay waan ognahay wax xaq la qarsoodiye maahan ninka marka qofka isaaqa oo maanta Hargeysa degan ee calankii uu taangiga ku soo buluuga ahay oo aniga in adeerkay Axmed Xasan diyaaradda calanka buluuga ku soo raayo mataqaana la yir ku garaac dabada aad ka kac Morgan yir garaac shacabka iyo Golchino iyo mataqaana idaacada iyo mataqaana garaac Axmed Xasan oo yir diyaaradda Djibouti u duulay hubkeena yir damiirkayga ma ogaan inaan garaaco naagta qofka marka dadkiisa awyaashiis abiyaashiis adeeryaashiis eedayaashiis habaryariis sida diyaaraddaas calanka buluuga ku soo loogu laayay oo askariga calanka buluuga ugu dhaganay xabadka ee garabka oo maxamed Soomaaliya lagu laayay genocide-ka lagu sameeyay seerta inuu maanta u yiraahdo calanka buluuga anu waa jecelahay ninkii habargeed waxay la mid tahay yiri calankii Hitler oo markuu Nazi flag baa la yiraahdaa oo yuuda ku leynayay shargareey fiidoogan wariyare nimankii wixii saaqan ka hadlayaan iyo wixii kale cadaaladda aaminsan ama mataqaana equality calankii Hitler markuu juuda oo jambar gaaska ku furayay oo ugu dhaganay meelaha jambar gaas ku furayay ama Nazi flagi oo hadda maanta Israa'iil hadii la geeyo what will happen ma dhacaya wala dilaya horta laga jara ninkii lagu arko so same situation arintii Hargeysa ka dhacdo Siyaad Barre iyo Gaan iyo Morgan Maadeer ay sameeyeen oo isaaq isirnacaybka loola dagaalamayay oo magaciisa la leynayay habar baa la dilayay
gabar baa la dilaayay inan baa la dilaayay inan baa la dilaayay mid uraa la dilaayay mid dhashaa la dilaayay mid dhalaa la dilaayay mid lugaala la dilaayay mid qalbiga la dilaayay kill because they are sad arrinkii ahay shargaraya videoga shargaraya hargeysa la geeyay videogan ama meel kasta dadka cadaaladda aaminsan inaad isaaq noqotid oo baa laakiin cadaaladda ka hadal speak for the justice dadkii marka saa loogu laayay askariga calanka Soomaaliya xabadka ugu dheganaay taangi calanka Soomaaliya buluuga ku dheganaay diyaaradda hargeysa suran ma taqaana meesha bankiga ajirta seeshiga hore oo suraadeer oo calanka buluuga ku sawran yahay inanka ma taqaana awowgiis aabiis adeerkiis in adeertiis hooyadiis eedadiis walaashiis walaalkii lagu dilay calanka buluuga nimankii xiray qalabkii jibkii iyo taangigii diyaaradda ku sawray said I don't know hadday saaqal rabaan kasoo jawaabaan dadka saaqal ay ku socota arrintaani anaga Soomaaliland waana laakiin anagana lama dilin because we are not saaq manin markaana la dilmayn magarat dadka single out lagu sameeyay single out target ka ahay target ku saaqbi ahaayeen dawra target good example waxaan ku siinaa meel fog aadin tii xamar xalana xeebtiisa ka dhacday 40 noo saaq la soo rushay saxaabad loogu furo the reason hal nima ka badbaado nin kilometer ku dulca hoostiisa markaasna ugu xidhan marka tagan ayuu badda ku carreeyo halkaas ku dabaasho halka ka baxay xalane runtan aan ka hadalno waay laakiin waxa la rabaa ninka victimka asagoo inuu soo hadla la rabaa haddii Soomaalida ku hadla weyse nin Soomaaliya madax ka noqdo yiraahdo meeshan Hargeysa genocide baa ka dhacay ma jiro الله ونعرسه محمد نور قلال باين هورشيما وبحش جان سيدك عيدين وكالي عبد الله ما جروا كالي ما كان برجع كالي لكن حسن الشريفين يمادان أن this is genocide دولة الصومالية ما acknowledge إن هرجيسة genocide كده عدين مركز الله الله يا لكن مركز درا هذا إسرائيل تكتور هذا genocide ما دعين هولوكوست ما دعين هولوكوست denial بلا شريال بلا هذا بالوحرية هولوكسوغ بنايا ninka marka dadkiisa saa loogu galay oo Hargeysa joogo oo stupidka laga dhaca mid kale ciida galaa mid kale whatever garxajsaad ugu yeertay wadabaad u soo xiranayo taadar dadku ayaga laga rabaa inay emotion dareenkooda iyo meesha taagan yihiin iyo wixii ku dhacay ka hadlaan isnada bawda musas buusu musabix maahan isnada bawda ucudmaani faysal cali waraabe isnada bawda wadani maahan cadaalad baan ka hadlaa genocide kan ka hadlaynaa marka cadaaladu ka hadlay cadaaladu color iyo magac midna ma laha ninka saawon cadaaladu hadlaa waa qofka cadaalad aaminsan laakiin haddii aad tiraahdo Hargeysa waxba kama dhicin waxba ka dhacma jira aysan aniga dad waxay ku naan aysan ayaga terrorista ay soo duulay nimankii shalay Hargeysa ku leeyahay haddii markay saaqi ogoliyay basaas la yiraahdo inay halayn هذا هوية كم الدفاع كريه برجع ما نسكت دفاع بس دفاع هذا كلابته واحد من دريات marka wuxuu ugu yiri qortan laga jaray idinka calanka soo xirta maanta Hargeysa la dhaximid qortan laga jab criminal qortan laga jaray kabacdi meedkiis maxkamad la soo saaray the reason wuxuu ninkaas dad calanka soo xirto yiri waxa danay garanaysa genocide Hargeysa genocide-ki iyo haraagii ama ninkan garanay af Soomaaliya waxa lagu yiraahdaa xasuuqi weynaayo de mass killing baa la yiraahdaa 22 qof iyo maan boqol of maan kumanal baan ka hadlaynaa marka kulana genocide thousands in qorta laga gooyay heedan dan jirkiisa maxkamad la soo saaro marka isaaq waa inay hadlaan dadkii marka victimska ah habarta adna baan ka hadlo waxa Allah runta sheegay ka hadlo inta kale wadani uud Musa Samee it's not about Musa it's not about that it's not forget about number Bubai said it's not about that war victimski dadkii la laayaan ka hadlayna oo thousand ay oo si cusurnimada ay sanaayibka loo laayay taas fi arintan qusaysa markii su'aasha waxay tahay ninkii habargidir wuxuu yiri oo hadlaaya dadka victimka ee Soomaaliland calanka Soomaaliland oo lagu dilo yiri askarigii xiray calanka buluuga oo xamar Soomaaliya ee dadkii isaga lagu laayay askarigii xiray oo waxaanu marqaati kana ninkii wadaab gaalo diyaardan ku garaacay Hargeysa la keenay ayaa lagu sharfay oo dadka ay joogaan taangi calanka buluuga ku dhaganay iyo diyaaradii iyo askariga uniformka xiray calanka buluuga watay iyo matana jeepki calanka buluuga ku dhaganay iyo altalerigi iyo wixii iyo hubki calanka buluuga Soomaaliya fila ku dhaganay
qofkii lagu dilo dadkiisa lagu baabaashi calankaa ma jeclaan karaa? How can he be loved? Was symbolic of the genocide oo adiga lagugu dilay. marka waxa soo raalaada interruption baan soo kala galay. marka calankii lagugu dilay isaaq lagu baabaashay oo isaaq qura lagu raadinayay aan waxa kale ama dhulmaanta ama godobuursay ama ciise ama faqashini ama dadka daami dhaadin on deegaanka Soomaaliland oo ninka aan la rabin baadiya dadka loo tayaa taadu isaaq ma taa gaariga saar حقي حبدا بف يا تادو عنق يا واي ساق حبدا كودفو يا واي رنتان واي ساق حبدا كودفو مريب قري يا واي عضقاني واي ساق بف حبدا كودفو يا واي كر واي ساق بف حبدا كودفو لوgu sameeyay marka calankii kaas dadkii xiray Somaliland maxay ka tiri ma sidoo ninkii habar gidir sheegay oo comparison isku cabraya oo yiri waxay la mid tahay calanka buluuga dadka loo geeyo maanta waxay la mid tahay calankii Hitler oo Israel maanta la geeyo ee maxaa dhici lahay su'aashaas waa su'aash saaqlada wadiiraya waa you must respond si strong uga jawaabtiin waay magarat dad baa waxay dhaheen buugaaya lacag farmaajo ka soo qaatay ciyaal garxajso lacag soo wuxuu yiri xirta calankan oo magaalada Hargeysa ku dhaxmar I don't know could be laakiin uma caday karno laakiin whoever behind it haddii aad aaminsantiin dadka genocide-ka la sameeyay oo dhacay oo cunsurnimo iyo discrimination lagu dilay kuwina nool waa inay hadashin you must speak for them halla niman isaga xamar joogo dhahaya dawladda maxamed saabare waxa kamida ninka habar jeclo dubal la yiraahdo maad guulida kamida afiican tahay maal hore dubada qodbana wuxuu yiri dawladda hore waxa naga dibiyo yiri wadamo sheegay niman Soomaaliyo jabada soo adeegsaday waa habar jeclaa hadhow bari waxa lagu leeyahay Hargeysa imaanayo dee lolo maal dikro habar jeclo maxamed kaana adeerkiisa hal cafiyo that's so stupid nimanka marka xamar jooga ee ay ruusaga sheeganaya ma isaga edna garana waxa ma dhicin farmaajo hawshan wadahaya principle adag waan in Soomaaliland ka soo saarto sharcigan especially sida yuuda u sameysay Holocaust denial videoga shargareeya oo sharci looga dhigay ninka dubal leeraada habar jecelo waa in la qabto hadii tomorrow ila dee cafis oo soo hortay oo dee xagan u booy maanay la cafiyo waa very useless waa denial Hargeysa wuxuu yiri wax lagu sameeyay ma jiray jabada tuuga soo duuro yiri oo dadka baabaashi dubada afkiisa ka yimid farmaajo wallahi ma ad guulad bayra waan dawladda xajisan waxa ma dhicin dawladda tiorana la ka dumiyay mid aan la ka dumin way dadad ogolaatiin adinka marka inta Allah marka aad ku dima difaaca kan waanu daal isaaq Allah isdifaaca hada loo baadan karana waa isdifaaca Allah وأنا شرعت كسميسين the denial of Hargeysa genocide يكوي كومت قرية يكوي لا أساس قرية يعني كيسمي واسكومت you have to establish the law that to prosecute those who deny this genocide take place in an indiscriminatory مثلا systemically would target a specific tribe of at that time called Great Somalia specific tribe of Isaga loogu talagala in lagu mataqana to exterminate you know what I mean to exterminate Hargeysa braaw ala dadka la dijinaya ma walaaba Isaaq ma degan marka we know what happened ina kan waa nool yahay Faisal waa nool yahay Muuse waa nool yahay they know what happened si wax u dhawaaween ayaga la rabaa inay shaqo sameeyaan ka hadlaan ninki qofkii dambigaan gala kan uu face gareynaya aba toogasho or life maxkamad my friend please dadka qosayso waxa waa Isaaq Soomaalida kale maybe I don't know how they deeply concerning this issue share gareeya and make sure inaad subscribe channelka uu ka imaanaya sources kan waxaan ka soo xignaa nin habar gidro leeyahay taakay ama afar xasil loo baxshay ayaa ka hadlay maanta oo commentigan sameeyay comparison ka ay leedahay calanka buluuga la geeyay Hargeysa it's similar same situation at the Nile of Holocaust calanka Hitler la geeyay mataqaana Israel marka you guys so wake up my friend wake up shargareeya
respond to comment in social media. Give me your comment in this video. Also, هلا قارسيا فيصل على ورابي أنا كايني عبد الرحمن عرو يا متقانا يا مصبح فيديو كان يا شعب الصومال المكسي شوغان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصوا هذا وعد أنت الإلهي ونحرسته كوي حق الرأي جانس كسمينا إلهي متقانا الله يسابته وده إسلام وساكينه ديفنس اللسون واستفاع كنن كله الناري عقابه كله متستحق إلهي لكن وحنا نصيب دراه هنا فيكتم كمان تلو هاللينو متقانا تدخين ولا إنها استراياني يا قبل السوق دقيقين يا كنا قد حجز يا كنا أساسي يا كنا سيقاس لو مبانا it's very useless ما قرأت rights ka victims ka wala difaaco the rights of the victims waa ina bill waan la baas gareeyo rights of the victims denial of the Hargeisa genocide and those who associate admire ama mataqaana promote the symbolic of the mataqaana perpetrators of the crime the genocide of Hargeisa perpetrators of genocide Hargeisa. If you wear that sign and support, you know, the cause of the perpetrators who commit this genocide, that person must be prescription to maximum to the law. جوابتي إنه صادرة أنا أبغى سنتين شرقري أنا now.